salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku xiran channelkayga Victor Sochiya waa idin salaamay walaalahayga qaaliga ah meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay maalin wacan oo wanaagsan waxaan idin rajeynayaa caafimaad qab bashbash iyo barwaaqo muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waa maxay infekshanka ku dhaca dumarka waa maxay caabuqa ku dhaca dumarka waa su'aal isweydiin mudan una baahan in jawaab loo helo si loo ogaado cilladaha jira iyo siyaabaha looga hortagi karo caabuqaasi shantii habeen oo Soomaali ah saddex ka mid ah waxay ka cabanayaan infekshanka ama caabuqa ku dhaca xubnaha taranka fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe saar like saar kambalyeelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelino laba ka mid ah asxaabtooda u share garay si ay ugu faa'iideystaan macluumaadkan caafimaad waa caabuq ku dhaca dumarka wuxuu saameeyaa farjiga tuubooyinka minka iyo ugxan-sidayaasha haddii aan la daaweynin wuxuu keeni karaa madhaleysnimo iyo in ay howlgab noqdaan xubnahaasi waa cudur caan ku ah dunida inkastoo lagu kala badan yahay waana sababta ugu horeysa haddana lagu hortagi karo madhaleysnimada u keeni karta dumarka wuxuuna infekshankan aad ugu badan yahay gabdhaha qaangaarka ah iyo haweenka xaasaska ah haddaba waxay idin soo gudbin doonaa waxyaabaha keena caabuqa xubnaha taranka sida eebe ugu talagalay waxay xubnaha taranka ee dumarka leeyihiin waxyaabo ka hortaga infekshanka oo qof caafimaad qaba uusan ku dhici karin ilaa in qofku la yimaado dhibaato difaacaysa oo hooseeya ama ku caawinayso in bakteeriyada ay ku taranto ama ay ku dhaawacmato ama ay gaarsiiso dhaawac afka hore ee minka taasoo keenayso in bakteeriyada gudaha ay u gudubto waxyaabaha ugu badan ee keena xanuunkani waxaa ka mid ah jabtada kalaamidiyaha HIV-ga isfiirtada herbiska iyo kuwo kale oo ka mid ah oo lagu kala qaado galmada sababta ugu badan ee dumarkeena u keento way ka duwan tahay dunida kale waxay ku xiran tahay infekshanka nooca uu yahay heerka uu gaarsiisan yahay infekshanka hadduu yahay mid dhiigga hooyada raacay wuxuu saameyn karaa uurka jiifta weliba xagga nafaqada iyo koritaanka ayuu kasoo saameyn karaa hadduu yahay infekshankaasi mid ka gudbay ama ka gudbi kara ibada wuu soo ridi karaa uurka jiifta ama uurka jirta hadduu infekshanka uu yahay mid ku eg xagga hoose oo keliya uusan dhiigga gaarin wuxuu saameyn karaa markuu canuga dhalanayo iyadoo dhici karta in indhaha ama meelo kale oo jirka uu ka taabto ama uu ka gaaro infekshanka haddii aynu u gudubno sababaha gaarka ah haweenka Soomaalida sida ay dhakhtar badani ay sheegeen waxay tahay in haweenka Soomaalida ay xirashadooda u badan tahay gorgorada haweenkeena badankooda ay si joogto ah u xirtaan gorgorada waxay marada gorgorada ka samaysan tahay maado loo yaqaano laylonka taasoo soo jiidata kuleylka iyo huurka waxayna abuurtaa dhidid badan haweeneyda kama gudubto hawada marada loo yaqaan laylonka jeermiska ama fangaygana wuxuu jecel yahay meesha huurka badan aanan soo gelinin hawada waana meesha uu ku tarmo caabuqaas haweenka aanan xiririn gorgoradaha way ku yar tahay xanuunka caabuqa ee fangaska keena ha joogteenin xirashada gorgorada inkastoo aanan garanaynin ummado kale oo ku labista gorgoradaha laakiin caafimaad daradeena waa mid muuqata laguna cadeeyay dhowr cilmi baaris iyadoo lagu fikirayo xiriirka ka dhaxeyn kara xirashada gorgorada iyo laylonka haddaba maxay tahay calaamadaha kale ee lagu garto caabuqa waxaa ka mid ah xanuun qaybta hoose ah ee wareegga kaadida oo gubta qandho qarqaryo leh xanuun xilliyada galmada
Ha isticmaalin waxyaabaha adag ama laga sameeyo laylonka aan ka gudbaynin hawada. Isticmaal maro jilicsan sida baatiga iyo waxyaabaha suufka ka samaysan.